Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal kulanti wanaagsan oo wacan. Galabta waxaan mowduuceena si kooban aan kaga hadlayaa insha Allah muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay noolaha u leeyihiin beeruhu. Ku soo dhawow mowduuca qaybtiisii koobaad. Beeruhu waxa ay door weyn ku leeyihiin nolosha aadamaha iyo tan xayawaankaba. Bini'aadamku wuxuu beerta u abuuraa si uu ugu noolaado isaga iyo xayawaanka uu dhaqdaba. Xayawaankuna waxa uu sidoo kale gacan weyn ka geystaa bixitaanka dhirta ama koritaanka dhirta, waayo dhirtu waxay u baahan tahay bacrimiye kaasoo luqadda qalaadna lagu yiraahdo fertilizer, taasoo dhirta ka dhigaysa cagaar una sahlaysa in dhirtu si dhaqso leh ku baxdo. Dhirta faa'iidooyinkeeda waxa ka mid ah cunnada, taasoo qayb ka ah jiritaanka aadamaha iyo noolaha kaleba. Sidoo kale waxaynu ka helnaa daawo iyo hawo, taasoo u fiican neefsashada noolaha dhammaantiiba, kuwooda caqliga leh iyo kuwooda aan lahaynba. Sidoo kale waxay u fiican tahay bilicda deegaanka, iyadoo meelba meeshay ka dhir badan tahay ka qurux badan tahay, kana hawo macaan tahay, kana udgoon badan tahay. Daawade adigan dhegeysanaya ee imaqlaaya ee daawanaya, weliga geed ma beertay mase ku fikirtay inaad geed beerto? Daawade geed beer, geed sahad jarin. Haddii aad u aragto mowduucani inuu mid muhiim u yahay dhammaanba bulshada Soomaaliyeed, fadlan share garee si ay kula wadaagaan oo ay uga faa'iideystaan. Like saar, subscribe noo saar. Tan iyo barnaamijkeena xiga berri inta aynu ka kulmayno dhammaan bahda Showtime waxaanu idin leenahay nabadgelyo.